sanadkii 2021 Itaal Football Academy waxa uu u ahaa sanad ay shaqo adag qabteen marka loo eego tababaradii kubadda cagta ee ay waqtiga geliyeen kulamadii ay ciyaareen oo isugu jira kuwa saaxiibtinimo iyo kulamo tartanno ka tirsanaa intaba. Akademiyadu sanadkii la soo dhaafay guud ahaan waxay ciyaartay 29 kulan. 11 ka mid ah kulamadaasi waxay ahaayeen kulamo ka tirsanaa 2 tartan oo Muqdisho lagu qabtay. 18 kulanna waxay ahaayeen kulamo saaxiibtinimo oo ay wada dheeleen kooxo iyo akademiyo kale. guud ahaan 29kaas kulan 18 ka mid ah ayay guuleysteen. 7 kulan barbaro ayay galeen halka 4 kulanna laga badiyay. kulankii goolasha ugu badnaa ay ka dhaliyeen waxa uu ahaa kulan dhex maray Itaal Football Academy iyo FC Barbaarta oo ka dhisan xaafadda Siliga Ameerikaanka ee degmada Wadajir. 17 May 2021 kulankaas waxa uu ku soo dhamaaday 10 gool iyo 2 oo ay Itaal ku guuleysatay, wuxuuna ahaa kulan saaxiibtinimo. kulankii ugu farxadda badnaa oo ay akademiyadu ciyaartay sanadkii la soo dhaafay waxa uu ahaa kulankii finalka tartankii Viva Gross Roots 2021 oo lagu qabtay garoonka jaamacadaha ee magaalada Muqdisho. kulankaas finalka ahaa waxaa isku arkay Itaal Football Academy iyo Juba Youth Academy. ciyaarta oo waqtigii loogu talagalay ku dhamaatay barbaro eber ah. penalty shootski ama gool kulaadyadii la dhigay waxa 2 gool iyo eber ku guuleysatay Itaal Football Academy oo sidaas ku noqotay horyaalka daayarta Soomaaliya ee 2021-2022. ciyaartaas oo ahayd tii ugu xiisaha iyo xamaasadda badnayd waxaa door lama ilaabaan ah ka qaatay goolhaye Mudallib Cabdirashiid Xaaji oo tartanka intii uu socday oo dhan shabaqiisa ilaashaday, wax gool ahna aan laga dhalin, xitaa gool kulaadyadii la dhigay oo dhanna badbaadiyay. guud ahaan sanadkii dhammaaday 29 kulan ee ay Itaal Football Academy ciyaartay waxay dhalisay 97 gool, waxaana laga dhaliyay 36 gool. ciyaartii ugu xumayd waxay ahayd kulan semi-final ahaa oo gool iyo eber ku dhammaaday. ciyaartaas oo ka tirsanayd tartan ay sanadka bilowgiisa qabatay Horn Africa Soccer oo Muqdisho lagu qabtay. ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badnaa sanadkii la soo dhaafay waxa uu ahaa Axmed Maxamuud oo loo yaqaano AK. laga soo bilaabo January ilaa December 2021 waxa uu dhaliyay 37 gool. waxaa ku soo xiga xagga gool dhalinta Yaxye Cabdiqaadir Maxamed oo dhaliyay 14 gool. Yaxye labadii sano ee hore 2019 iyo 2020 isaga ayaa gool dhalinta akademiyada qaadayay, laakiin sanadkan ayaa kaalinta koobaad laga galay. caawintii ugu badneed waxaa sameeyay Amiin Cismaan Ibrahim oo ka ciyaara qadka dhexe. sanadkii la soo dhaafay 2021 waxa uu caawiyay 14 gool. waxaa ku soo xiga Cumar Sahal oo 7 gool caawiyay iyo Yaxye Cabdiqaadir oo 6 gool caawiyay. sidoo kale Mascuud Cabdiraxmaan Xasan oo cuuday ku magac dheer ayaa isna caawiyay 5 gool. goolkii ugu quruxda badnaa waxaa dhaliyay Mascuud Cabdiraxmaan Cuude oo qadka dhexe ka ciyaara. waxa uu gool free kick ama laadka xorta ahaa uu dhaliyay intii uu socday tartankii Viva Gross Roots. haddii aan eegno shaqooyinkii wanaagsanaa ee ay qabteen daafacyada akademiyadu ay tababarto, dhammaan difaacyada oo aan la kala reebin waa kuwa suurtageliyay in akademiyadu ay ku guuleysato kulamadii ugu badnaa ee ay ciyaartay. Cabdiqaani Cumar Shucayb oo Nuno ku magac dheer
isla markaana ka ciyaara daafaca dhexe. isaga oo shaqadii ee daafaca qabanayay ayuu dhaliyay 3 gool, 3 kalena waa uu caawiyay. Cabdullaahi Mubaarak Ibraahim oo ka ciyaara dadabka midig ee daafaca ayaa dhaliyay 3 gool halka 2 kalena uu caawiyay. Liibaan Cabdisalaan Xasan iyo Nasiib Saleebaan Saxardiid ayaa min 2 gool caawiyay, halka Cali Xuseen Caliyeeti uu dhaliyay 1 gool. dhanka goolhayaasha, Mudallib Cabdirashiid ayaa ugu safasho badan. waxa uu saftay 24 kulan oo isugu jiray tartamo iyo kulamo saaxiibtinimo. kulamadaas uu shabaqa waardiyaha ka hayay waxay akadeemiyadu guuleysatay 15 kulan, 6 barbaro iyo 3 guuldaro. goolhayaha labaad ee akadeemiyada, goolhaye Cabdiqaadir Cali Maxamed Cadow ayaa saftay 5 kulan, 3 kamida kulamadaas guul ayay ku dhamaadeen, 1 barbaro iyo 1 kulan oo guuldaro ahaa. Mudallib waxa uu shabaqiisa kubadda ka ilaaliyay oo aan wax gool ah laga dhalin 9 kulan, waana 9kaas kulamada aan akadeemiyada wax gool ahba laga dhalin. mar kale haddii aan si guud u eegno shaqooyinkii ay qabteen ciyaartooyda da'da yar ee akadeemiyada dhinaca gool dhalinta, waxa ugu horeeya Axmed Maxamuud Eke oo dhaliyay 37 gool, Yaxye Cabdiqaadir 14 gool, Cabdiqani Maxamed Salaad 13 gool, Ayuub Cabdi Barre 8 gool, Cumar Sahal 6 gool, Cuudey 4 gool, Salmaan 4 gool, Nuunow 3 gool, Cabdullaahi Mubaarak 3 gool, Yaxye Aweys 2 gool. sidoo kale ciyaaryahanada kale ah Amiin Gaagaale, Cabdifataax Aweys iyo Caliyeeti ayaa min 1 gool dhaliyay sanadkii la soo dhaafay ee 2021. dhanka gool caawinta waxa ugu horeeya Amiin Cusmaan Ibraahim 14 caawin, Cumar Sahal 7 caawin, Yaxye Cabdiqaadir 6 caawin, Cuudey iyo Cabdifataax Aweys min 5 caawin. daafacyada kale ah Nuunow, Naanow iyo Cabdullaahi Ajaay ayaa min 3 gool caawiyay. sidoo kale waxaa min 2 caawin sameeyay Eke, Cabdiqani Maxamed Salaad, Liibaan, Cabdullaahi Mubaarak iyo Nasiib. sidoo kale Ayuub Cabdi Barre oo dhanka gool dhalinta kaga jira kaalinta 4aad ayaa 1 caawin sameeyay sanadkii la soo dhaafay. macallinkii ugu fiicnaa tartanka Horn Afrique Soccer ee la qabtay bishii May waxaa ku guuleystay Aweys Xaaji Nuur Aweys Aar. isla tartankaas kooxdii ugu anshaxa wanaagsan ee tartanka waxaa qaaday Itaal Football Academy, iyo goolkii ugu quruxda badnaa ee tartanka laga dhaliyo oo uu dhaliyay Cabdiqani Maxamed Salaad. goolkaas oo ahaa free kick amaba laadka xorta ah. tartankaasna akadeemiyada oo ku hartay heerka semifinalka waxay tiigsatay kaalinta 3aad. tartankii Viva Grass Roots oo la qabtay bishii Oktoobar 2021, koobkii tartanka waxaa ku guuleysatay Itaal Football Academy. macallinkii ugu wanaagsanaa tartanka waxaa ku guuleystay Aweys Xaaji Nuur Aweys Aar. goolhayihii ugu wanaagsanaa tartanka Mudallib Cabdirashiid, iyo goolkii ugu quruxda badnaa oo uu dhaliyay Mascuud Cabdiraxmaan oo Cuudey ku magac dheer. ugu dambeyn sanadkii la soo dhaafay, Itaal Football Academy oo ku guuleysatay koobka tartankii Viva Grass Roots, isla markaana kaalinta 3aad ka gashay tartankii Horn Afrique Soccer. bilado iyo abaalmarino qaali ahna gudoontay. wuxuu akadeemiyada u ahaa sanad xiiso iyo xamaasad leh. waxaan sugnaaba waa sanadkan cusub iyo waxqabad dardar leh. Yeah.